aada umahadsantihiin qolada soomaali weyn ee bejkaas leh oo qaatay videoga. aada umahadsantihiin. samaanta qaata, xumaanta iska reeba. keliya maa xumaanta in la buubuuniyo, samaanta in la buubuuniyo leedahay. okay, lambarka insha allah inaan soo qoro dula yiraahdo in barya insha allah waalihiga waxa garab u siisan ana Nairobi ana keenay insha allah dula yiraahdo ana keenay ilaa idinkis ilaaha ii fududeynayo waxa ilaaha ii fududeynayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo wada gala waxyaan rabaa inaan oo aan idin wadaago si islaamnimo ku jirto, bilaadnimo ku jirto, oo damiirkana uu ku jiro. aan rabaa inaan idin kala hadlo idinkoo maasan xilligan kaftameen iyo xilligii la sacaynay ma ahan. waxaan rabaa intii inaan idin sheego oo waxaan rabaa soo wada gala insha Allah. waxaa la yiri qofka markii aad wax ku leedahay diin ku leedahay beriyaa keedisa qaadanaysaa. adduunkan waxa aad geysto unbaa aqalkan ku yaalo. meeshaan waxaa ku ugu jeedaa ilaah baa idinku dhaariyey oo rasuulkiisa idinku dhaariyey. meeshaan ila fiiriyo. okay, waxaan rabay inaan idin sheego aniga hadda kaliya hadda un baa arkay aniga aqoon uma lihi wax aqoon u leeyahay malahan. laakiinse wixii haddii ay buro tahay oo ay kansar aysan ahayn waxaan jeclaan lahay walaalayaalow qofkan masaakiinta ah in la soo caawiyo oo wax loo qabto. waxaa la dhahaa muumino jaamac waxaa soo qoray horseed media. muumino jaamac cumar waa hooyo xaamilo ah oo uur leh oo 5 bilood ah, haystan 4 caruur ah, xanuunsan muddo 8 bilood ah. dhabankiisa ayaa nabar ugu soo baxay, nabarkaas oo ah buro. ma hadli karto, ma seexan karto, habeenkii way tahdaa. okay, marka lambar meeshaan lagu soo qoray uu leeyahay faahfaahinta kala xiriir. dadka qurbaha jooga waxay ku soo galayaan +2547088094340 mes 4340 mes. okay, haddaan kusoo celiyo kan koowaad 07 dadka Nairobi joogo 0708094340. waxaan jeclahay inaa caawisan oo ilahay dartiisa caawisan. ilaah baa idinku dhaariyey in haddaan aniga is caawin yaana caawinayo. waa leega bal fiiriyo. والله وبالله وطلع عليه وانت قدرت كدhahay والله aqoon ma lihi hadda arkay. marka waxaan jeclaan lahaa hadda arkay والله oo ilaahay loo gaarsiyo loo gahay. waxaan jecelahay walaalayaal والله بالله tallahi in laba door ama hal door isku darno. waxa waaye inta soo wadno inta aan keenno waa laga qalka operation laga sameeyo waa laga qalka magarta. ilaahay baan ku dhaakana xanuunka danka meesha dabka meesha si maray fiiriyo. marka waa leeyahay adduunkana wax lagu yahay. maanta waxaa arkay caruur oo aad u baahan oo qatan. caruur kalena ay baashi ay inta dhargeen raashinkii ay dalbeenayaan ama inta wax soo reebay qashinku lagu daadinayo. caruurna way ka gaajaysan tahay. marka maamadan waxay joogtaa xiriyaha qaxootiga joogtaa aan fiiriyo meesha joogto xaga dheer joogtaa. intaas waxaa usii dheer gaajo iyo xanuun waxyaabo badan usii dheer. marka waa leeyahay waxaan jeclaan lahaa insha Allah dula yiraahdo oo waxaan jeclaan laba lambar meeshan ku qoran. lambar kale waxa waaye 0759647522 oo dambeeyo. waa sidii meesha lagu soo qoray laakiin isku hubiyo qofka aad la hadlaysiin. aniga kaliya ma aqaano Facebook aan ka arkay laakiin se waxoogaa caloosha ay gudoontay. marka waxaan jeclaan lahaa maamada in la soo dhaqaaleeyo oo la soo wanaajiyo oo qof walba wuxuu awoodaba oo ilaahay baa laakiin joogtaa akram brother xerooyinka dhadhaa bay joogtaa. waa ka soo qaadi karnaa inta waan keeni karnaa wallahi inta waan keeni karnaa hadda isku duubnaano waa inta keeno sida caadadeedba waa yani oo dad badan loo soo qabto waa la samayn karaa in la soo wado inta la keeno operation lagu sameeyo. aniga waxaan
dhihi lahaa oo ila fiican soo wadaag intoo dhib ma lahan meelay seexato dhib ma lahan hotel loo helaa iska raqiisa aa loo helaa laakiinse waxaan jeclaan lahayn nin walba ilaahay beri buu ku siinaa haduu ilahay yirahdo insha allah marka ilaahay beri waxbuu ku siinaa lambarkaa inta idinku soo qoraa lambarkaa inta idinku soo qoraa marka waa leegi aan is caawino wax cid noo maqan ma lahan cidna nooma maqno ceelna nooma qodno waa rafaadsannahay annaga un baa iska bixin karno annagaa garab siin karno adduunyada aa ujeedaan caddaanka aa ujeedaan ee saraha dheer leh markii laba qof laba isku maadaan shaah wada cabayaan nin walbaba jeebkiisu shaygii koobkii shaah wuu ka dhigtaa laakiin anaga soomaalinahay toban shaah markii la cabo hal qof aa bixinaa waa lasku qabsan lameyna bixinaa waa yani waxa waye intaas waxa waye iimaanka iyo islaamnimada waay magarad wanaagga marka waxaan jeclaan lahay maamadahan waxaan jeclaan in lasoo ogaado hadduu ilaahay waxay joogtaa xeeradan waxay joogtaa awe xeerada dadaabay joogtaa Kenya ay joogtaa marka wallahi wabillahi oo talaa wixii amaanta aad dhibato bari aakhiri kaaga horeeyaan wallahi yow war waxa arkaysa fiiri nin jaad cunaayo daan ku taagan yahay aku iman wuxuu leeyahay barad wax sii kaasa wax siinaysa oo sadaq ku baxdo waa kaadib waay waa baashi waa qof nolosha ka dhacay marka shilinkaas aad siinaysid waxa ku dhanto baashi mid kalena waa idin sheegaa waayaala waxaa jiro nin odaya waxaa jiro dadka horey niro sheegaa nin odaya waxaa jiro oo ku qaraato oo dhaho gabdhahaygii nima adoon inay iga xoogaan ka cabsanaa meel jingad meeshaan degiin waxaan rabaa in la caawiyo oo lacag la siiyo aan guriga guri fiican u degsado okay habeenada kamid ah anigoo banaanka taagan guriga xaafadda banaanka taagan laamiga aan dadba ila taagnaa marka ninka anuu qof la taagan la sheekaysanaya oo wuxuu yiri wuun la hadlay markii qofkii la joogay xogo waa inuu la hadlo wadiido uu ka tagay ana usoo leexday odaygii waa sheekaysanay maxaa ka dhiman lacagna wuxuu igu yiri waxa iga dhiman 3,500 maya 3,500 aan ku deganahay 500 aan soo helay 3,000 iga dhiman ilaahay waa ogyahay jaabka intaan gacanta gelinin intaan jaabka gacanta gelinin maama meesha soo martay maama kaala yiri xaqa dilaaca fiiriya wuxuu yiri baash gal Yusuf Xasan brother xilli aan kaftan iyo la sheegay la saayay mal taagan baadkiyo qof xanuunsan meeshan joogo maanta caafimaad qabta saan waa aytan ka taas aytan laakiin bilxaqiiqan kale na mugtahay marka ninkii maamadii waay maamadii wuxuu ku yiri maamo wiilka u duceey lacag uu siin hayay u duceey maadaama ninka igu fogaa maamada cidda adiga reestri hadda korso ana idin balmeeyay soo kubni baashi ana ilmaha gabdhaha sawd ana guriga ku dejinayo ninka waxay ninkan wuxuu isticmaalaa qamar isticmaalaa waxba siin marka sidii waxaan diibo sheegay ku shilnasi waxaan dhahay inta kale waxaan ku dhamaystiraa hadii raaciyo kuma raacayna laakiin bariga wada sugu mana maqaaxidan kula kafeen sugu mano okay maqaaxida kula kafeen dalkii ku sugi waa waay aniga maalin iska soo oo meesha hijaba gees maray waxa ka ninkii oo saddex naga tagin wallahi gooran gaariga aan baashi aan dami oo aan ka digan garwa waa orday oo waxana kale aba iska baxan ninkan tuug waan dhahay sababtoo ah waxaan u leeyahay tahay tuug wuxuu ku yahay umad baana jirto afkiisa qamriga soo oday waa yeel waay magarad waxaan been oo idin sheegay waxaan leeyahay ani intii balbismeen ugu balbisay أنا كنت أقولي أنا أقول كرينايو سو تحكي شنو بقول لك أنت أنا كده مستري يعني أنا راشين كودي قاعد سو باي مركز دك وحوي ودي بدين دك على قناة مركز حنجعل لها ولا يو دك والله وإلا عاوية أنا عايز عاونه يا برادر دم الله يوسف سون بدر كي مركز أنا عايز عاونه يعني أقول استوى حواسي ناي دك أبانا لو تقول أنسينه ولا يو حلف عن واي إلى إذا كسر حنجعلهن أنا باش أن أو أن أبدا سينرو لو كان لها كله والكي يقول جرا تفتح ويقول جرا يعني أسرع إياه وبدنا لك هذا أفتح جنتنا وجوجا إن شاء الله هوش أنا قرينا دولاي هذا وكيلنا ما شاء الله لكن حنجعلها ما كانوا أوكي وصغرى وحارة ما كان كانوا إن شاء الله دولاي هذا أون كانوا أون أو حريا لقى سوق هذا دكتور كي أنا ديك عاوز أنا وحي أنا أوده يعني أنا جبي إن شاء الله دولاي هذا أوكي صوت أنا بحاول ما أنت عارف ماذا كنت جفنا عارف ما أنا كنت جفنا ضدنا وحنوسين وحاسو درستي باهي وحاسو درستي يو باشي يو وحاسو درستي يو حنون ما قرت مركو حنجعلها إن شاء الله هل ما تدري كوسنا ماماس نيرو واكينا أنا كيناي هدو يا هذا سام كينو أنا كيناي لمبر كينو وانا سكرة أنا وعي هدوك وعنايو ماماس واكينا أنا ميل دجناي لكن والي وحنجعلها $1 أما أودي كنت بقولش إنه كيش قفل بهدو سودرو حواي وماما ده وقال أوبريش وقسمين كرنا يا مركو حنجعلها مركو باشي إنه حربة إن ما مضى إنه صو أن سيد الوصول قالين أندرو أنت كأنه ماشي سحن لهاد وحي عون لهاد أنت صبح عن باش أنا بابك وريتو عندك أو باش إن ولا يوم حقله أنا وحبان ليام وحبان هاي سامي لي أو مدين لي هنتيا لي مدين لي لكن صحيح بدان فوق عليه سماي أنت كان
boqol shilin keen laba boqol keen kan dhaho habeenkii loo jigaan dibro waxay cun lahaayeen iyo qofkii la socday qasba kale ma soo bixiso intaba inaan ka caawino aniga waxaa ogtiin insha Allah haduu la yiraahdo maamada inaan inta keeno Nairobi lodge aan dejino taas sameeyno markaas kadib waxaan garab idin ka rabaa marka oo Ilaahay dartiisa idin ka rabaa aniga en waxa waaye waxaan ma qabanayo aniga idin kale waxay la qabanaysiin oo ila tugsanaysiin oo gacan ila taaganaysiin garab nigu siin kartiin marka waxaan jecelahay haduu Ilaahay yiraahdo inaad bahashi maamadan aan caawino meeshaan si aan ku keenleen ama keenina haduu Ilaahay yiraahdo qasab waaye marka waxaa haduu Ilaahay yiraahdo walahigiyow xilligii aan kaftamayni gooni waaye xilli kale nooga dhiga laakiin waxaan jeclaan lahaa insha Allah maamadan la soo caawiyo lambarkeedu waxaa waaye 07 59 64 75 okay 7522 of the best anaa idin soo qoray marka lambarka laga ilaahay waxaa waaye 07 08 09 43 afartan of the best marka insha Allah duleeyada waxaan ku codsan inaan soo caawisiin aniga ma caawina duleeyada marka waxaan jeclaan lahaa lambarka waa idin soo qoray duleeyada maamada la soo caawiyo idin barya please nguru waaye kasar ma ahan waa kaasa okay lambarka insha Allah aan soo qoray duleeyada idin barya insha Allah walihiga waxa garab u siisan ana Nairobi ana keenay insha Allah duleeyada ana keenay ilaa idinkis ilaahay ii fududeynayo waxa ilaahay ii fududeynayo ma kaliya in aniga aan baash oo aan oo sheedaan ahay oo kaliya oo hees aan gool dadkay waa qaba inkastoo aniga aan qaxootina oo dhibana oo dad dhiban aan hadina waxa waaye inaan is caawin aniga dhiban inaan is caawin wax ka fiican malan lama helayo wallahi laakiin okay ducada muhiim been ma ducada muhiim way laakiin qof isugu darsatay gaajo iyo cudur waxa waaye dhibaato waaye أنا كل يوم يوتيوب على يوتيوب كاس إن شاء الله بحكي سوق عن جالنا عاوي أون باش أون باش لعت له يدرو كين هاي إن شاء الله يوتيوب كنا وخاض دولار أنا يوتيوب كلير أو ما قلت بركو عن جالنا لما كان يسوق إن شاء الله دولار إن شاء الله مركز كنا دولار مكاس بس إن شاء الله إن وحي كل أنا ورنا أو بلنقاد حان بلنقادي يوتيوب كاس وحي لقاه dadka dhiban in wax lagu siiyo in ku caawiyo aniga wax ma haysto laakiin se waxa waaye qofku wuxuu dhaamaa marka maadaama la islaamo qof kale hadii aadaantid inaa wax fiican wax u qabato marka insha Allah dulay raado wixii aniga soo go insha Allah ilaahay iga soo qaado ka soo qaadka ilaahay hayo ka soo qaadka ilaahay insha Allah dulay raado wixii aan ilaahay iga soo qaado waan ku tawraca dulay raado idinkana waxaan jeclahay lambarka hadda ku soo qoray meesha dulay raado lambarkaas markaan soo qoro la xiriira laakiin se iska hubiyo qofka alla hadlaysiin waa dareemi kartiin qofku waa dareemi kartiin sababta markii uu baash alladii qofka markuu caafimaad qabo qofnaba ku waa dareemi kartaa siduu u hadlaa qaabku hadlaa si fiican ma hadlaa halow haa ma fiican tahay waa fiican yaa waay ma ku dhihi karo waa dareemi kartiin marka waa idin barya walaalayaal caawiya lambarka intaa ku soo qoraa dulay raado aadan umasantiin ilaahay ajri axsan Allah idin siiyo inta sadaqa baxsan waxaan dhihi lahaa sadaqaas maalin maalin aa ku baxsanaysiin marka idin jeclahay insha Allah waa soo lambarkan soo qoraa dulay raado taaliga waxyar lambarka maamada la soo qoreen aniga lambarka ma hubo laakiin se meesha lagu soo qoray waxaan rabaa markii lambarkaas aad ama santiin qolada Soomaaliyeed ee page-kaas leh oo qaatay fiidiyoga aad ama santiin samaanta qaata xumaanta iska reeba kaliya ma xumaanta in la buubuniyo samaanta in la buubuniyo leedahay marka insha Allah dulay raad wal khayra waxa baqay ku dhamanaya
waayo lambarka idin qoray insha allah laas isku wanaad ila yiraahdo